وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد مدحدا kala duwan ee halka joogta madaxda xukuumadda iyo madaxda xisbiyada ee dhalinyarada Soomaaliya marti sharafka dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan jecelahay runtii inaan abaaro mustaqbalka iyo dhalinyaradan Soomaaliya wixii talo iyo tusmo aan u soo jeedin karo waan ugu horeysiiyo waxa muuqata oo aan idinku hambalyeynaya inay ilaaliseen sharcigii ilaaliseen oo ku dadaasheen xataa hadday maalin jimcaha ku beeganto oo maalin cibaado ah oo sayidul ayaama ina qabataan shirkiina qabataan waxaan arkayaa runtii niyad sami iyo dadaal ku dadaalayseen inay tahay dadaal ku dadaalayseen inay tahay inaydaan waqtiga dhaafin waan idinku hambalyeynayaa waxaan se leeyahay waxa qurux badan sidaa sharciga u ilaaliseen sharcigu ilaalinna wuu u baahan yahay adeegsina wuu u baahan yahay sharcigu wuxuu u adeegaa bulshada samaysatay buu sharcigu u adeegaa marka ku dara close ama baarigaraaf line tilmaamaya hadday ku soo beeganto hadda waa taladayda hadday ku soo beeganto jimce ama ciid ama maalin qaran oo sida 18 May oo kale ah ama allaba inaguma keeneen maalin qorax madoobaad way adkaan doontaa mar walba in sidan oo kale la sameeyo oo force majeure aan waxba ka bedeli karin oo ilaahay ku xidhan shalay buu idinka arkayay marka waxaan oran lahaa hadday maalin noocaas ku soo beeganto maalinta ku xigtaa la qabanaya line ha lagu daraawun sharciga adeecdeen maalin hadday ku soo beeganto maalinta ku xiga ayaa la qabanaya wax space oo kulli waxa laga cararayaa kororsiimadiina waa shay wax kororsiimaya iyo space kuma jiro laakiin se sharciga waxa la sharciyeynaya in la ilaaliyo xurmada ay leedahay ama cibaadadu ama qaranku leeyahay ama duruufaha soo kordhay force majeure iman kara marka saasaan odhan lahaa taa marka labaad waxaad loogu celceliyaa dhalinyarada space hala siiyo siyaasadii hala soo geliyo hala dhiirigeliyo war waxaan leeyahay anigu baldacal ka duwan baan ka hadlayaa war dhalinyaradii hala badbaadiyo hala ilaaliyo ha loo guntado inay guulaystaan haddii dabada laga riixo inuu la yidhaahdo xil halala doono shaqo halala doono oo taasuu lagu celceliyo kii tagaaba banjaro ama bariiqdo war guuldaray ku dambaynayaani waxaan leenahay Soomaaliya iyo dhalinyarada kale active-ka ayba ha ka shaqeeyaan war boorta intii xilka tagtay bal ka war doona maxaa guulaystay maxaa macaashaysaan raasamaalkii ma haysaan mise wuu bariiqday haddii maalinba mid banjaro beritoole waxa iman doonta inay idinku dhawowdo mahmaadii ahayd nin yar intuu geed ka boodu tala ka booda oo ay hadhowto adkaato marka waxaan leeyahay dhalinyaradii tagtay horena waanu irimkana waan ku celinayaa dhalinyarada xeelka tagaysa ee aadka loogu celcelinayo inay siyaasadda tagaan waa saxo ha tagaan laakiin se isku daya ina gaar ka haysaan ina la talisaan ina qorshayaashii ay ku badbaadi lahaayeen dhigtaan ina taageertaan oo isbarbar taagtaan si ay u guulaysataan idinkuna waxaan ku darayaa nolosha wada siyaasad maaha yaa nolosha la wada siyaasadayni oo dadka loo wada jahaynin siyaasad wax lagu guulaystay iyo wax dayacan oo qaran ku leeyahay waa badan yihiin waxaan uga gudbayaa qodobka saddexaad aan doonaya inaan ku daro oo ah waxaa muuqataa in dee Soomaaliya soo jirtay muddo 9 waxaan filayaa min 2 sanadood miya ma 8 hore oo min 2 sanadood waliba kan 3 soo maaha 17 sanadood way dhaaftay intii qof ku qaangaari jiray intii qaangaar lagu gaari jiray way dhaaftay daarada dhaafo dalka horta wada gaadha marka koobaad oo active ka noqda oo gobolada dalka ka wada shaqeeya oo way joogaan ururada idinka ka midaan waxoogaal baanu ahay laakiin se preseniska ururada la dooni maayo activity-ga shaqo laga qabanayo baa la doonaya marka waxaan leeyahay dalka wada gaadha oo activity-giina iyo shaqadiinu dalka wada gaadho
ومركا لبعض daaradda ka gudbo dunida gaadho bal mar kaliya hay'adaheenu ha noqdaan inay qaan gaadhaan oo haddaanay meel fog gaadhayn Afrika bal Ethiopia iyo Kenya gaadhaan oo in ka badan intan loo shaqaynayo socda waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka ugu dambeeyo ah 17 sanadood waa soo wadeeno way soo dooranayseeno duruufo kala duwan baa ka soo gudubteen berrina mid baa maraysaan waxa muuqata runtii aan idinku hambalyeynaya isku duubnidiina iyo sida ku soo saarayseen leadershipka mar walba inkastoo aan xoogaal u ahayo in badan halkan isa soo taago Soonya joogtay xoogaal u ahayo siyaasadda guud baa iyaduna saameyn ku laho doorashadii noocii ay ahayd inay horu socoto oo ay la horumariyo oo ay hay'adda taabagalkeeda iyo gaashaan qaadnimadeedana qayb ka noqon lahayd waxaan ogahay in marar badan consensus iyo waxa weeye in xulul lagu soo saaro aniga lafteeda mararka qaar ka odayeeyo leeyahay nagala odaye yaan la kala yaacin marka waxaan leeyahay way fiicantahay laga odayeeyo la ururiyo oo consensus-ka ma diidayo laakiin waxaan leenahay ila qaran baynu nahay hadii qarankiina 30 soo jiray oo consensus ku jiro dhalinyaradiina ayimka 20 gaadaysaano consensus ku jirtaan oo ay noqoto xaaladdu maalin baa reeru dhiibno ila waynu soognahay برين بالله دورنا يا والله يسي شاقين هبل بالله دورنا أنا يمكن حب تفقدي معي وعن سوقين كونسوس كاسون وانية سميوا على وصو صار يايو وهلا بل قولا هبل لا أنكو إجنو هبل لكو إجنو وروح يوبا هنتينا مركب جدوتان أو كدورتان capacity قف كلية هي أقونتا هي كارتيدا حفيز سياسة معها حفيز سياسة قبان ميسان متشقا قبان إيسان هدان قف كلودي بيان نقون قف شقا دا وديارسن oo darban waxay noqon doontaa un barigaan weerareen baa la oran jiray baaskeesha aan shock soo laabo technology-ga baaskeesha ugu weynaayo idib aan shock soo laabo marka waa inuu soo yara wareejiyo marka maalin bareer hebel shock soo laabo war ayaynaan ku jirin maalin bareer hebel shock soo laabe si hay'addu ay u korto hay'adii waxa sameeysan hay'ad macna la ka yeela oo qofka waxa weeye ay caddahay shaqada lagu dooranaya marka labaad ay jirto waan ogahay in waxa la beegar ku choice male ma andoonay inaan ku raagay raali ah mawduuca ila galay ninka bariyay doorsanaya choice male ama doorasho male baa leeyahay waan ogahay dalbataan mashaariic idin kaga xidhan hay'ado oo say doonayaan u qabataan laakiin waxaan leeyahay siyaasaddiina haday taa ku bays garaysnaato waxa weeye meel dheer gaari maysaan siyaasad qaran iyo istaraatiijiyad qaran